safki nabigiyo qomki subanayo ana asxaabta raacni soma ramadanta safki nabigiyo qomki subanayo ana asxaabta raacni soma ramadanta وبشان سوغيني إلهي نسيه أين سعيدين صوم رمضان وبشان سوغيني إلهي نسيه أين سعيدين صوم رمضان سيدي ولا لا وخير بوجودي ان شاء الله. تمام السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سكرات الموت كيو سؤاشنا كيريو أسيرات كموني صوم رمضان سكرات الموت كيو سؤاشنا كيريو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمان أمد الصوماليات بهذه اللي قبيري برشدان جعلا أفور تايم واي أنا قدرت نقار maybe أنا أفورتين لكن ولي أنا أفوركيني لما جارين هذا مرة ربع أنا أفور يهولي يجيك جلا دمانتي ولا لا قالقة وأن كقاضي ولا لي السود وهذا سيوجد بينا إن شاء الله. maanta to waxa weeyaan marka ugu horeysa umada Soomaaliyeed waa la soo daahay reer midnimo qaran hadaan xoogaa bariyahan live-keen waa yaraaday marka waxaan marka ugu horeysa in leeyahay dhamaantiin meel kasta umada Soomaaliyeed bahdi la iga beeray ay ku nool yihiin waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim ilaahay waxaan ka baryaynaa Ramadaankiisa caafimaad barwaaqo bashbash iyo dalkeeni oo nabada ilaahay ha nagu gaarsiiyo intii dhimatay ummadii Soomaaliyeed iyo ummadii Islaamka iyo ummadii ilaahay maaratay oofsaday oo dhan ilaahay jannatul firdawsa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qabriyadooda u nuuriyo ilaahay annagana gadaashooda inuu nafidnaynin ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa I miss you too wallahi dhamaantiina waan misgarayna raali noqda marka insha Allah waa la soo daahnay barnaamijyadeeni laakiin waan soo gudbinaa barnaamijyo kale live-kii baan xoogaa aan ka hakarnay marka waana alxamdulillah maanta ummadii Soomaaliyeed oo dhan baa dalkii u taagan oo u hadlaysa oo ummadoodii baraarujinaysa oo ummadoodii mugdiga ka saaraysa ilaahay baa shukrigaas iyo barwaaqadaas iska leh waxaan u maleynayaa marka retire baan noqonayaa anu mar dhawaaba iska retire gareynayaa because alxamdulillah ilaahay wuxuu noo keenay roob nabad iyo dad iyo Soomaali wanaag raadinaysa baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo keenay marka alxamdulillah alshukri walaalayaal marka ugu horeysa Ramadaan Kariim ilaahay dadkeena iyo ummadeena Soomaaliyeedna waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala maslaxad khayr qabta inuu dhex dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa nabad inuu ummadda Soomaaliyeed u soo dejiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa 30 sano oo mugdi ah ku jirnay ilaahay 30 sano oo iftiim ah oo ummadda Soomaaliyeed oo midaysan ah oo ummadda Soomaaliyeed oo aqliga u soo noqday ah oo ummadda Soomaaliyeed oo khaladkoodii saxday ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu nagu gaarsiiyo ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed waa bil Ramadaan bisha Ramadaan waxa la shadaadinta horta waa la xiray shadaadinta waa la xiray laakiin dadkaygii Soomaaliyeed ayaga shadaadintoodii wali lama xirinin oo waa kuwa dagaalka isugu yaboohayo kaca isdilada ku haayo
ummadda soomaaliyeeday kursigan madaxweynaha ama prime ministerka ama kursiga siyaasaddu waa wax yimaada oo baxa kursiga siyaasaddu ma aha waxa baxay laakiin bini aadanka generation to generation dalalkan aan joogno generation to generation ayaa kursigaas marba qof koraayay oo marba qof ka degaayay oo marba qofna dalka u fiicnaa qofna dalka u xumaa qofna dalka u fiicnaa qofna dalka u xumaa waa wax caadi ah waa normal adduunka dhan way ka dhacdaa madaxweyne xun iyo madaxweyne fiican kursigana sidiisa waa kursiga dalku waa kursi mar kastaba ilaahay wuxuu qofku u garta uu maraayo dadka kursigaas gala kulligood waa dad ilaahay soo doortay oo qiimalahoo ilaahay sharfay kursiga marka ma aha cilada waxa waaye qiimaha qofka ku fadhiistay ayay ka imaanaysaa sharafta qofka ku fadhiistay kursigaas weeye sharaftiisa because qofkaasi sida uu u dhaqo dalkiisa mas-uuliyadiisa alla ka baqiisa maxay tahay xaqsoorkiisa ilaahay wixii uu u faray oo u diray siduu uu ummaddaas uu hogaamiyaha u yahay uu ugula dhaqmo oo maxay tahay uu hogaamiyo weeyaan waxa quruxda lagu sheegayo waa taa kursigan meesha ku fadhiya quruxda ma aha waa how you treat it how mataqaana aad u bedesho how adiga aad bini aadanka maxay tahay ugu muujiso wanaagaaga sharaftaada dalkaaga sida aad u jeceshahay dadkaaga sida aad u sintay cadaaladda sinaanta maxay tahay wax walba xaq soorista wax kastaba waa waxa way kursiga ma aha kursiga weligiis meesha uu jooga kursiga meesha iska fadhiya laakiin quality-ga qofka qiimihiisa kursigaas imaado dalkaas wuxuu u qabtay ayay ku xiran tahay America oo quwadaha adduunka ugu weyn ah Mareykanka oo quwadaha adduunka ugu weyn ah waxa soo maray madaxweyne haddu naga dega madaxweyne xunaa soo maro mid fiican soo maro madaxweyne xunaa soo maro mid fiican soo maro madaxdeeni hore kulligood sharaf bay lahaayeen kulligood midba meel buu ka soo qaaday last 30 days oo 3 decades la soo dhaafay madaxda Soomaaliyeed dalkeena mugdi fool xun oo hore hoose ayuu galay midba meel buu soo gaarsiinayay sidoo rabaha uu tabartiisu hal ekaato laakiin midba uu taraagreynaayo wanaag buu taraagreynaayo inuu bal adliisa soo tilaabsado ayuu taraagreynaayo maanta meesha aan joogno ma ahayn inaan joogno laakiin inaga ayaa gadaal isu celinay Soomaali ayaa gadaal isu celisay ummadeena ayaa is xasuuqday waxa dhacay dagaal sokeeye waxa dhacay in la isbireeyo waxa dhacay ummadii Soomaaliyeed inay ayagu meeshii ay hormari lahaayeen ayagu isbaabiyaan marka meesha aan joogno iyo meesha hadda aan ka soo tagnay foolxumada hadda laga soo tagay oo 30 sano maanta meel fiican ayaan mareynaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay ida abuurtay ka baqa ilaahay ida abuurtay azza wa jalla ka baqa waa bil Ramadaan madaxda Soomaaliyeed baa la hadlayaa madaxdeedii sharafta lahayd ee dalka Soomaaliya kursigaas qiimaha dalka u leh ku soo fadhiisatay ayaan la hadlayaa ilaahay azza wa jalla ida abuurtay ee idin risaaqay ee idin caafimaadka idin siiyay ummadii adduunku maanta waxay u dhamaanayaan coronavirus ilaahayga idinka badbaadiyay ilaahayga idin siiyay in aabad mataqaanaa dhaqdhaqaaqaysaan ilaahayga nafta idin geliyay ummadda masaakiinta ah ee 30 sano gubanaysay ee 30 sano dawlad la'aanta ahayd ee 30 sano maxay tahay dhaqaale la'aanta ahayd ee 30 sano caafimaad la'aanta ahayd ee 30 sano daawo la'aanta ahayd ilaahay baan idinku dhaariyay Allah subhanahu wa ta'ala uga xishooda madaxdeedii sharafta lahayday oo madaxweyne xasan sheekh ku jiro oo madaxweyne sharif ku jiro ilaahaygiina abuurtay ee ciisada lahaa ee ummadan iyo akoonkaanba aan ku neefsanaynaba abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala uga xishooda waxa aad samaynaysaan oo maanta Ramadaan bil Ramadaan aad samaynaysaan ma aha siyaasad toolal siyaasad ma aha maanta Muqdisho madaxdeedii sharafta lahayday Muqdisho maanta uma baahna xabaalo kale Muqdisho 30 sano muddo dheer ayay xabaalo ahayd muddo dheer ayaa dadka la xasuuqay muddo dheer ayaa waxba la isu reeban muddo dheer ayaa wiil iyo maxay tahay walaalkiis isdilaayeen Muqdisho waa meeshii ummadda Soomaaliyeed ay magacaabatay ay dooratay ay dawladnimadooda geysteen ay dawladnimadooda u ogolaadeen waxa waa privilege ilaahay ku siiyay waaye markii adiga hadda adoo isu saarsaaraysid qabiil adiga aad qabiilkaagii u haysto meeshii dawladii dhan dalka laga xukumay waa wax ilaahayna qof nasiib la siiyo waxaan idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliya 30 sano ayay hoogaas iyo ba'aas iyo dawlad la'aannimadaas ku soo jirtay maanta meesha dalka uu u socdo haddaad ka hor istaagtaan meesha loo noqdaa waa hoogii iyo ba'i iyo xabaalihii iyo mataqaana xabaalihii badnaa ee hore u jiri jiray waa meesha loo noqdo
waxaan idin leenahay ummadda soomaaliyeed oo madaxdeena soomaaliyeed xabaalo dambe uma baahna muqdisho qof soomaali oo dambe oo gardarre lagu dilo uma baahna maatooyin iyo ilmo yaryar iyo saqiir la qaxiyo soomaaliya uma baahna ummad masaakiin oo rabadaanka gaajaysan oo waxba haysan oo rabadaanka la dhaho ka kaca yaaca uma baahna siyaasadda wax ka bedela siyaasaddu taa ma aha madaxdeena sharafta lahayday annaga ayaa idinla jirayna markaad soo diyaar garowdaan oo idin garab istaagayna oo aad noola imaataan war waxaana wataaya hala igu doorta aad noola imaataan laakiin anaa meeshaan keligay ka talinaayo anaa meeshaan keligay madaxweyne ka ahaanayo anaa meeshaan ummadda soomaaliyeed magaceedii oo dhan ku haysanaayo anaa maanta haddii la iga diido aniga nimaan ahayn kama talinaayo haddii la iga diido oo anigu aan ka tali waayana waxa weeyaan maxay tahay ciidaan afka u daraaya ummaddana waa qaxinaa dadkana waa laynayaa madaxdeedii sharafta badnayday ee soomaaliyeeday wax oo idin qabta oo ummadda soomaaliyeedna idinka qabta idinkana inay idinka soo baxaan ah wax fiican ma aha wax la idinka sugaayey ma aha waxaan idin leeyahay nin kastoo xataa ilaahu maad 2 sano ka soo shaqayso ilaahu maad 1 sano maa 6 bilood ka soo shaqayso dalka soomaaliya xafiisyada soomaaliyeed xafiis soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed haddaan 6 bilood ka soo shaqaysay waxaa ku saaran mas-uuliyad aan qofka shicibka asaarnayn ayaa ku saaran xataa haddaada shaqadii haynin inaad nabadda ilaalisid inaad dalka u adeegtid inaad calanka ilaalisid inaad sharafta ilaalisid inaad mar walba ogaatid ummadda soomaaliyeed inay adiga indhaha kugu soo taagayaan inay ummadda soomaaliyeed ku eersanayaan madaxda gobollada iyo madaxda maxay tahay gudaha muqdisho oo hadda dhahay waxaan u tartamaynaa maxay tahay waxaan nahay mucaaradka adduunku taa ma aha mucaaradka adduunku umalahooda ma qaxiyaan mucaaradka adduunku rabadaanka dadka sooman banaanka ma dhigaan mucaaradka adduunku waxay la yimaadaan siyaasad qoran oo ay dhahaan waxaan ku tartamaya waxay la yimaadaan xisbiyo waxay la yimaadaan waxay dadka wadnahooda iyo qalbigooda tusaan oo ay ku doortaan waxay la imaadaan wax ay og yihiin dadka Soomaaliyeed dadka adduunku inay ku raacayaan ama madow ha ahaado ama gaal ha ahaado ama islaam ha ahaado ama buuri ha ahaado qoladu raba ha ahaado marka ummadda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed waxaan idin leenahay peace and love waxaan idin leenahay dagaalka joojiya waxaan idin leenahay Allah subhanahu wa ta'ala dib ugu noqda waxaan idin leenahay adduunkani waa wax yar oo laguma waaraayo waa laba bari oo laguma waaraayo adduunkuna waa waari meysida war ha ka haro ilaahay ka baqa oo ummadda Soomaaliyeed oo silacaad u sii wadaan iyo hooga aad u sii wadaan iyo dagaalada aad ku baaqaysaan iyo kacayda aad wadaan iyo qabyaalada 30 sano naga bixisay adduunka naga reebtay ee gadaal noogu celinaysaan ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed especially madaxda Soomaaliyeed ee awal madaxweynayaasha ahaan jirayo dib u noqda ka fiirsada waxa aad sameeynaysan because mas'uuliyad baa dalka u soo qabateen because ummadda Soomaaliyeed magacooda madasheen because masiirka ummadda Soomaaliyeed dawladnimada ummadda Soomaaliyeed xamar kaliya ma laha dawladnimada ummadda Soomaaliyeed ba iskale dawladnimada ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogan ayaa iskale hal qof ma laha hal reer ma laha hal shakhsi ma laha waxa lagu matalayaa intaasoo milyan oo qof oo Soomaaliyeed ayaa siyaasadda iskale ayaa iskale kursiga ayaa dawladnimada iskale ayaa nabadda raba ayaa caafimaadka raba ayaa shaqooyin raba ayaa nolol raba ma ahan ina idinka tiina kaliya ka fakartaa ma aha ina idinku dhahdaan taayada haday suurtoob weedan afkan dhulka u galiyeena dalka ma aha ina tirahdaan annaga meeshan ka talino horta markasta aan maqlaayo ereygan ah annaga meeshan ka talino iyo annaga iskale Muqdisho oo ma aha dadka sharafta leh oo dhan ma aha beelweynta Soomaaliyeed ee sharafta leh oo dhan ma aha oo Muqdisho dad beelo badan baa dega banaadir baa dega maxay tahay jareer weyna dega maxay tahay waxa dega maxay tahay beelweynta sharafta badan ee hawiyo oo dhan baa dega afartaan nin oo ummadda Soomaaliyeed raba inay qabyaalada ugu kacsadaan awrka oo habeen iyo maalin qabyaalad undabada ku dhaganaadaan oo tiri dhakaytiski aan ka soo gudbinay dib noogu celiyaan dib ha uga fiirsadaan because caasimada dalka Soomaaliyeed iyo dawladnimada dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed baa iskale qabiil ma laha horta Soomaali taa kala saarto war dawladnimada kulligeena naga dhaxaysaa caasimada kulligeena naga dhaxaysaa haddii ay afartaan nin ayna brown ku ahayn in caasimada dalka iyo dawladnimadii Soomaaliyeed Muqdisho lagu haayo braaw ha la geeyo caasimada dawladnimada ha la qaado braaw ha la geleeyo braawna waa dhismay sida hadda Muqdisho taa ka badan oo ka qurux badan ay u dhismay ilaa dawladnimada way waxa dalku ku shaqeeyo dawladnimadii meeshay taale haddaan dhaho dawladnimada socon mayso
caasimaduna socon mayso labadaasna anaa isku haysanayo adduunka meel ay ka shaqaysataa lama sheeginin nairobi ma taagnaateen maxay ta caasimadaha kale Ethiopia Addis Ababa ma taagnaateen adduunka caasimadiina oo Afrikaan xataa iska bada adduunyada kale ma taagnaateen maxay ta Washington DC iyo New York ma taagnaadeen min Washington DC baba ahba maxay ta caasimada ma taagnaateen war adduunkan dawladnimada waa la wada leeyahay dadka Soomaaliyeed inta jahliga ahaan la hadlaya dadka sharafta leh la hadlimayo dayna waan ogahay waxaan habeen iyo maalin daawadaa dadaalka iyo orodka iyo wanaaga iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho dhaha la xijinayo oo u dhashay oo maanta xaq u wada taagan baan daawadaa oo aan ku faraxsan oo baraar ku oo alxamdulillah aan taaganahay laakiin midda aan ka hadlayo waxay tahay walaalayaal nimankan hadaynan aaminsanayn oo ayagu ay isbaaro u dhigteen dawladnimadii Soomaaliyeed iyo caasimadii dalka Soomaaliyeed iyo qarannimadii dhamaydba haday isbaaro 4-5 nin u dhigatay oo qaarna gobolka joogan qaarna Muqdisho joogan ay u dhigteen caasimada dhan dawladnimada sida meesha hadda state-ka aan ku noolahay magaalada aniga aan ku noolahay magaalada kale ayaa state-kiita capital-ki ah hala qaado caasimada dawladnimada hala qaado hala geeyo marko hala geeyo Baraawe ha dhismato marka iyo Baraawana ha dhismaan maxay ta Muqdisho hadda 4 nin kaliya iska dhaadhiciyaan dadka Soomaaliyeed ee beelweynta degan Muqdisho dhan baa la hadlaya fakara because 30 sano ay dadka Soomaaliyeed inoo xayiran yihiin umada Soomaaliyeed 30 years bay xayiran yihiin waxay u xayiran yihiin Muqdisho dawladnimadii ka hagaagi lahayd waxay u xayiran yihiin Muqdisho ama ana ka talinaya ama waa gadinaya waxay u xayiran yihiin ama aniga aan saan rabo sameeyo ama afka dhulka u gelinaya ma jirto Soomaalinimadii dawladnimadii qarannimadii wixii la wada lahaa oo dhan waxay noqotay inay ku soo arurto shakhsi waxay noqotay inay ku soo arurto hal qof adduunkana taa kama shaqayso hadday ka shaqaynayso de isteedyada isteed baan ugu hadda joogay capitalki baba joogo iyo meesha ugu weynaan Mareykanka isteedkan hadda aan joogo xataa haddii la dhaho maxay tahay meesha la yiraahdo symbol capitalka waa laga raraaya oo la fahmi waayo meesha la rabaa la geeyna meesha la rabo oo la dhahayo alla ilaahay capitalka quruxay ku ahaanay dawladnimaduna xasilooni bay ku helaysaa ilaa dadka dawladnimada ka shaqaynaya walaalayaal baarlamaanka iyo madaxweynayaasha iyo ummadda dawladda dalka u shaqaynaysa waxay u baahan tahay xasilooni waxay u baahan tahay nabadayn waxay u baahan tahay meel ay ku fakaraan waxay u baahan tahay inay qalniyo buuq qaataan oo ay fakaraan oo dalkoodii iyo dadkoodii ay badbaadiyaan waxay u baahan tahay inay fakaraan oo maskaxda ka shaqaysiiyaan intii hadaynan oolin oo nabadii iyo fakarkii iyo hawlqalkii iyo daldhiskii iyo maxay tahay ciidamada dhiskii iyo diyaarada dhiskii iyo dekada dhiskii iyo wixiiba aan la gali karinin oo ay tahay halka war aniga mooyee qof kale uu noolaan afartaydan nin baa weligeed 10 nin baa Soomaaliya haysanayso oo isku arurtay maxay tahay marka inteenaas ay kaliya ayaa talinayna hadii la dhaho oo annagii bas le waxaan rabnaa aan sameeyno idinkana juuq ma dhihi kartaan oo dawladnimada hadaa diidaan oo idinku hadli weydaan oo misaan rabnaa sameyn weydaan afkaan dhulka u galayna ama ku helay ama ku ciideeyay maarta waa sheekada umada Soomaaliyeed ee dagaal Soomaaliya uma baahna 91 kale tan uma baahna 91 haday khayr leedahay iyo haday sharaf leedahay laba walaala isma baabiiseen Muqdisho la iskuma gumaadeen meydka lagama tilaabsadeen lama kala garan waayeen dhiigii iyo biyihii iyo dadkii iyo noolihii lama kala garan waayeen ummadii hay Soomaaliyeed haddaad wax ku qaadanaysaan oo waliba reer Banaadir iyo reer Muqdisho la hadlaya oo wax ku qaadanaysaan dhibaatada dalka Soomaaliya ka soo dhacday tii Muqdisho ka dhacday meel ay ka dhacday adduunka ma jirto tii ka dhacday Muqdisho meel ay ka dhacday dunida waa yar tahay silci ka dhacay dadkeena gumaadkii iyo qaraxyadii intaas oo sano lagu soo beegsanayay meel ay ka dhacday adduunka ma jirto baabi iyo hoogi iyo dhulkii la dhahay waa wada xabaalo wallaahi baan ku dhaartay Muqdisho markaan tagay ilaahay magaci ilaahu ada iga hadlina waa soomanahay Muqdisho markaan tagay waxaan arkay guri oo aan tagay oo la igu dhahay meesha ku weysaysanay laba qof ku aasan aan ka booday meesha dhan aan ka booday meesha lagu weysaysan ay tuubada ku taalay laba qof ku aasan alayda marka Muqdisho ayadaaba xabaale ah waa xabaalo wadareed oo family iyo walaalo is dooxay oo is wada dilay oo is baabiyay oo maxaad raadinaysaan oo ka daba dagaalka cusub Muqdishada arkaysa arka u fool xumaatay meesha oo mukulaalhu galaan noqotay oo baabaaday oo lagu dhahay saaraaba lagu soo dhisay lagu dhahayo maxaad ka burburinaysaa oo waliba inta ka iftiimaysan adigu aad leedahay ilaa anigu soo arko waan tago dadka Soomaaliyeed aan tagay ma ihi anigu 29 sano ka dammaan soo arkay Muqdisho marka inta yar oo dhalaalaysana idinkiina madaxda ayaa iskale inta dhalaalaysa inta sar dhalaalaysa intiina madaxda iskale marka ilaahay miyaadna ka xishoonaynin
ummadiisa masaakiinta oo masuulka idinkaga dhigay madaxay miyaadna ka xishoonaynin maxaa dowladii iyo iftiinkii yaraa oo maanta usoo baxay aad kulligiin lugaha ugu dhegantihiin oo habar wacadka iyo qabyaalada iyo waawaray iyo anaa laandheer ah maxay waxaas idiin saa'idaynayaan 4 sano ilaahay jaanis ku siiye 4 sano ilaahay jaanis ku siiye haddaad ka faa'iidaysanayso ummadda Soomaaliyeed wadnahooda qaadanaysa sidaan kuu sheegayna kursigu ma aha kursigan wax bedela wax bedela waa shakhsiga ilaahay keeno kursigaas ama mid fiican ha ahaado ama mid xun ha ahaado dunidan oo dhanna mid xun iyo mid sanba waa soo maraa dunidan oo dhan meel uuna soo marin mid xun iyo mid san ma jiro Soomaaliyeed mid aan meel ayna soo marin madaxweyne fiican iyo madaxweyne hagaajina iyo madaxweyne xumaynayo ma jiro ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa dhamaystiran wax dhamaystiran adduunka ma jiraan madaxweyne laakiin dadaalaya marna madaxweyne dadaalaya dalka hela marna madaxweyne laybaag oo xoogaa iska oo mataqaan iska jiifa ay u hela marka madaxda sharafta leh anigu bil rabadaanna waay sideeda ahaana hadda waxaan bedelay aniga midnimo ahaan haddaad ila socoteen weligay waxaan bedelay hadda maadaama aan dad badan oo Soomaaliyeed oo maasha Allah gobonimada u taagan aan arkay anigu hadda sidaan u hadli jiray dhan waa bedelaya oo ahayd inaan canaanto madaxda anigu ma kala nicin mid gobol jooga iyo mid maxay tahay gudan joogaba oo caasimada joogaba anigu kulligood madaxda waa ii siman tahay laakiin aniga waxaan ogahay dhulka inaan leeyahay ciida la leeyahay ee kulligood inayna lahayn waxaan tusayaa inaan ahay ownerkey of this land with them waxaan tusayaa inayna ayaga kaliya ahayn ownerka maxay tahay Soomaaliya waxaan tusayaa in aan xaq u leeyahay inaan dalkayga u hadli karo waxaan tusayaa inaan xaq u leeyahay dhulkayga inuu dhulkayga yahay waxaan tusayaa inaan badayda iyo ciidayda la seelgareyn karinin waxaan u hadlayay taas ahayd laakiin nacayb iyo xumaan gooni ah iyo kuwiina iga dadacwooday ma aha wallahi iga tahay xasan sheekh baana nabcayn dani baana nabcayn madoo baana nabcayn qof aan nabcahay ma jirto doonli siyaasadda waxaan ogahay maanta adeerow masuul noqotay oo walaalow masuul noqotay oo quruxow masuul noqotay inaad ummadda Soomaaliyeed oo dhan matashid anigana in matashid aniguna waxaan ahay qof oo ciidiisa calankiisa ilaalsanayo marka xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo aan iraahdo waxbaan dhaliilaya dhaliishuna ma aha cay dadka Soomaaliyeed waxay u yaqaanaan haddaan dhaho maanta soo hadal qaado farmaajo cayda leeyahay waxna waa cay waa sinjacay waa maxay tahay wax cay waa personal cay waxna waxa waaye waa dhaliishii iyo waxa la isku khaldaa Soomaaliyeed ma kala taqaanba annagana waxaan noqonay qoomiyad rogmatay oo maskaxiyan rogmatay oo aqliyan rogmatay oo annagana waxaan nahay dad iska nool oo badarka iska cunay oo iska nool baan nahay dalkeeni hadda bisha rabadaan dadkeeni waa la qaxinayaa hooyooyinkii baa ilmaha dhabarka ku qaadanayo buuq baa ka jiro niman baa fadhisan la haddana kulligeen badarka iska cunayna kulligeen miidiyaan ku wada jirnaa kulligeen waa iska aamusanay kulligeen waxaan moodaa qofkii hadlana waxa la leeyahay waa maafiya waa waalan damiirkii iyo dareenkii baa naga dhintay oo dad waxaan noqonay saa u dhintay ma fahanteen marka waxaan leeyahay madaxda sharafta leh ilaahay subhanahu wa ta'ala hadduu idin qoro inaad noqotaan kursigaas ninka ka talinay aad noqotaan waad ka talinaysaan laakiin dadka Soomaaliyeed maanta uma baahna qabyaalad uma baahna kala kaxayn uma baahna maxay tahay ku awrkacsi qabyaaladeed uma baahna inaad qaxooti ka dhigtaan rabadaan bil rabadaan uma baahna inaad xabado oo 30 sano ay dhagu ku soo xaruureen hadda koow ku daartaan uma baahno waxay u baahan tahay inaad xasilooni ula imaataan oo caqli ula imaataan oo dadaal ula imaataan oo tustaan ka gadaan oo iga iibisaan annaga naga iibisaan waxa aad rabtaan inaad nagu amaamushiin sheekadan xooga iyo anaa xoog leh iyo 1991 baa loo noqonayaa dadkan qoorta ka jaraya qoorta dadka oo dhan ka soo jartay kaba dhigba ka soo jartay maxaa ku hagaagay ma jannadii adduunka lagu baaqay ma jannadii firdawsaha banaanka fureeda laga siiyay ma waxa uu dhahay adduunka iyo aakhirada ahlu janna tahay miyaa lagu dhahay ilaahay ha loo noqdo ilaahay subhanahu wa ta'ala ha loo noqdo madaxdeena ilaahay u noqdo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka uga baqa dadka masaakiinta ah oo rabadaanka ku jira oo aad dagaalka ku dul abaabuleysaan oo muqdishada ayadoo dhanba xabaalaha ah aad leedihiin xabaalahaanayti haddana xabaalo kale ha lagu sii diro aad leedihiin ilaahay dartiisa uga noqdo annaga nin kastoo Soomaaliya madaxweyne ka noqda waa madaxweynaheygii aniga waxaan kaliya ka dhiidiyaa oo aan nabcahay dhulkayga laga gato dhulka waan ilaalsanaa ummadda Soomaaliyeed inta damiirka loo dhan way ilaalinaysaa dhulkeena laga gatana waan nabcahay gabdhaha Soomaaliyeed oo lagu xadgudbana waan nabcahay labadaa mid aniga maxay tahay waxa kaliya oo ka raba madaxweynahayga waa taa gabdhaha Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed carruurta Soomaaliyeed loo miciimo dhulkeena oo aan la gadan oo iyo dalkii oo la badbaadiyo ciidan leh oo diyaarado leh oo dawladnimo ka muuqato ayaan u baahanaa madaxweyne kasto imaadana garabkiisa ku nahay
oo waa ku taageeraynaa oo waa la joogaynaa oo wax waa ula qabanaynaa oo falantiir baan weligaan ugu shaqaynaynaa waa ku shaqaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha laga baqo madaxda soomaaliyeed oo muqdisho dagaalka ka hurinaysa waa bil rabadaan ilaahay ka baqa ilaahay ummadda masaakiinta ah oo ilaahay idinku ammaansaday oo idinku aad dhaqaalaha ku dul haysataan oo idinku daaraha ugu dhaadheer oo dhan aad ku haysataan oo muqdisho maanta iftiinka yarka ah oo soo galgalay idinku aad leedihiin ilaahay waa idinku fiirsanayaa allah subxaana wa tacaala waa idinku eeganayaa ummadda ilaahay ka xishooda oo masaakiinta ah oo ilaahay iyaga wixii aad dalka dhan loogu talagalay idinku gacanta aad ku haysataan oo idinku aad madaxda u tihiin oo idinku aad mas-uulka u tihiin ilaa qofka mas-uulka ahi ummadda dhan buu mas-uul ka yahay farmaajo ummadda dhan buu mas-uul ka yahay maanta dalka soomaaliyeed dhowrka milyan oo soomaaliyeed oo meel kasta adduunka jooga ayuu mas-uul ka yahay qof kasta ayaa eeganaya qof kasta ayaa fiirsanaya anigu waxaan rabi lahaa madaxdan soomaaliyeed oo hadda last 4 years ku daba dhegan madaxweynahani inay intay nastaan isu soo dhisaan tartiibtooda ayagoo nasan ay la yimaadaan program fiican oo ay dadkooda tusaan oo wax ka gadaan annagaa la shaqaynayna wax ka gadaan oo dhahaan maanta aniga madaxweynahan intaanu qabtay anna intaanan diyaar u ah inaan qabto asagii baan ka fiicnaanaya laakiin asagii baan qabyaalad ku ridaya qabiilkayga keliya muqdisho ka talinaya dee dowladnimada soomaaliya oo dhan baa wada leh hadday saa sheekadu tahay dowladnimada ummadda soomaaliyeed marka waa inay qaybsataa siday ku qaybsan lahayn waa inay keenaan waa in muqdisho laga qaadaa dowladnimada waa in meel kale la geeyaa oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka dhexaysaa ilaa dowladnimada qabyaaladda waa hal reer laakiin dowladnimo waa qarannimada ummadda soomaaliyeed waay qarannimada ummadda soomaaliyeedna adiga keligaa intaad gacanta gashata ma dhahaysa ani keligaygaa iskale ani keligaygaa saa raba ka samaynaayo ani keligayga ayaa saa raba ka samayn karo nobody else haddii kale waa gubayaa meesha dhan adiga carruurhaaga haddaad dibadaha geysatay mudana madaxweynayaal iyo mudana maxay tahay xil doonayaal dhammaantiinba haddaad idinka carruurihiinni iyo xaasaskiinni meel baraf ka da'aayo iyo meel maxay talaagad qabo aad ku maxay aad cunto u geliseen iyo meel aad idinku guryo millions of dollar uga gadeen aad ku haysataan dadka masaakiinta ilaahay mooye aadama uma maqnaa dadka masaakiinta talaagada ma haystaan dadka masaakiinta biyo oo nadiifa ma haystaan dadka masaakiinta rabadaanka naftooda ayay la dhacdhacayaan naftooda maxaa cuntaabay la dhacdhacayaan ilaahay ma ka fogaateen ilaahay miyaa xasuusanin marka ilaahay marmarka qaarkood wuxuu dhahay markaad la yaabta xataa warbal maxay tahay xataa fiir abuuristeeda iyo waxayse miyaadna ilaahay ka baqinoo aadna ka fikirin barwaaqada aad haysataan iyo sida dadku u dhibaataysan yihiin iyo sida aad mas-uulka u tihiin miyaadna ka fikirin dalkii soomaaliya hadda meel walba waa dhisan tahay soomaaliya xamar keliya ma aha caasimadda hargeysaa la geyn karaa caasimadda waxaa la geyn karaa walaalahan intii la heshiisiiyo dadka soomaaliyeed oo halka beesha wada hal beelaa nahay aa la geyn karaa haddii laga daayo waxaa la geyn karaa baraawe waxaa la geyn karaa markacadey baydhabo markay joogtay dowladda markii la geeyey baydhabo hadda waa taasaa u dhisanta u nuurtay laakiin anigu waxaaba iga soo boodayba dowladnimadii dhanna halkaanaan ku haysanaa beeshayda aniga keliya xamar iska leh dowladnimadii oo dalka dhan ka dhexaysayna waa haysanayaa maxay tahay waxna igama go-aan waxna kama yeelaayo mana aha ummadda oo dhan waa la ogyahay taa waxa maanta dhan dagaalamaya oo meel walba taagan oo maanta iftiinka yar oo muuqda waxa muujiye waa reer banaadir waxa muujiye waa reer muqdisho iftiinka yar oo soomaali u soo iftiimay waxa wada waa reer banaadir iyo reer muqdisho laakiin waxay hor taagan soddonkii nimo aan ogeyn oo soomaaliya 30 sano ku maxaa la jiray cunay 30 sano soomaaliya nimankay wax tartay waaye waxay hor taagan waa niman is aruursaday oo gruuba oo qabyaalad lahayn laakiin qabyaalada dadka ku kacsadaan waaye marka walaalayaal ummadda soomaaliyeeday horta waxaan idinku codsanayaa inaad xaq Allah u istaagtaan kulligiin meel aad joogtaanba midda kale waxaan idinku codsanayaa ummadda soomaaliyeeday Allah subhanahu wa ta'ala inaad dalkiina u baridaan bishii rabadaan hadda 10kii dambaan galeynaa walaal qof kastoo Soomaaliyo laba ragcadood oo sunna inta tukatid ilaahay u bari dalkaagi ilaahay u bari ummadaada ilaahay u bari dadka Soomaaliyeed murugadaan iyo mucjisadan amarka ah oo ku habsatay ilaahay inuu ka qaado ilaahay u bari inay dawlad xaq oo xalaala iyo dal wanaagsan inuu ilaahay dalkan ka dhigo ilaahay u bari in aan marba ka dambaysa hadii wanaag la siiyo fiiri hadii xumo lagu dadaalo xumo la helaa hadii wanaag lagu dadaalana wanaag waa kobca oo waa yimaada oo meel baa laga gaara oo maantaba dalkii ciidama u dhisan oo wata afrikaankii dhan waa xanaaqsan yihiin afrikaankii oo wadankeena u dhawaa afrikaankii noo dhawaa ee afrikaanka kala ahaa kulli waa xanaaqsan yihiin because ciidamadooda in la diraayo og yihiin mar dhow
waxay ka baqayaan Soomaaliya ciidamadooda xooga dalka Soomaaliyeed oo runta ah inuu soo laabto because aragtida socota oo lagu tala jira waxay og yihiin in Soomaaliya diyaaradaheeda iyo maraakiibteeda mar dhow imaan doonaan waxay og yihiin inayna Soomaaliya mugdiga ay ku jirtay ayna ku jiri doonin ayagu dhanna waxay ku lacag kaga dhargeen oo ku raaxaysteen burburka Soomaaliya iyo sida uu baaba'sanahay burburka Soomaaliya iyo sida aan u baaba'sanahay ee ayagana ku raaxaysteen oo lacag uga dhargeen marka inaga maxaa Afrikaanki kaleba waa fakarayay maxaa anaga madaxdeennii Soomaaliyeed ee madaxtooyada hore u soo martay maxay u fakari waayeen oo dadkooda ugu maxaa adig kaliya taada kaliya mar walba uga fakaraysaa maxaad uga fakari weyda ummadan qoomiyadan Ilaahay ku baday oo adigu aad madaxda u ahayd inay balnastaan oo wax isu bedelaan maxaad ugu diidaysaa yaa u diidaya hadda mudane xasan sheekh iyo mudane sheekh shariif hadday intay 4 sano ka dambo dawladooda ee dalkooda la shaqeeyaan dalkii markuu cagihiisa ku istaago oo farmaajo baxaayo inay intay soo istaagaan nahan okay anaguna tartanka ku jirnaa yaa u diidi lahaa qof u diidi lahaa ma jiro maxay u leeymaan waay intay nastaan hadda wayba baaba'een oo way rafaadeen madaxdeennii maxay u nasan waayeen oo cunto u cuni waayeen oo u diyaar garoobi waayeen oo ugu diyaar garoobi waayeen in xalaal way jidka saxda ah ee siyaasadda maxay ugu diyaar garoobi waayeen jidka saxda ah ee siyaasadda ilaa sidana jidka saxda siyaasadda maaha xooga isticmaala qabiila isticmaala hadda ani ka talin waay meesha kama talinaysid adigu minority tahay aniga le meesha ka talinayo that's not siyaasaddu waxay tahay qofku inuu isu soo dhiso dadka Soomaaliyeed ee maxay tahay 30 milyan ama 40 milyan inuu u sheego waxa uu ka dhaadhicin doono iyo waxa uu qaban doono iyo sidoo dalka ugu adeegi doono siyaasaddu waa taa laakiin siyaasaddu ma aha minority baa tahay you are not going to be here minority baa tahay ani kaliya meesha iskale ani kaliya ka talinaay hadday saas tahay dee Soomaali intay isu timaado dawladnimada Soomaali baa leh dawladnimada Soomaali talaha ka gaarto hadda dhaysa aniga kaliya iskale magaaladan aniga kaliyaana dawladnimada leh wax aqal gala ma aha wax dhici kara ma aha inaad tirada dadkii kale oo dhan la sayba maanta inta farmaajo waa ka tagay muqdisho oo aan ognahay siday noqotay oo taariikhaha adduunka ku jirta oo maanta soo noqotay maanta hadduu farmaajo ka baxo labadii mid xasan sheekh iyo xasan khayra isku dilaya we all know that because qabyaalada foolxumadeeda iyo nafsigeeda iyo cuqubada laga galo ummadda iyo xaqdarrada dadka Soomaaliyeed oo iska socoto weligoodba la galayay meel xun bay ku dambaysaa waan ognahay haddii hadda laga baxo xasan khayra iyo xasan sheekh iyo in Cabdishakuur awoowey baa isku garaacay beerka isaga tumaa ma fahanteen because waa qabyaalada laakiin siyaasadda hadday isku raacaan in Cabdishakuur iyo wiilka Baydhabo jooga iyo wiilka Garowe jooga iyo wiilka maxay tahay Hargeysa jooga iyo wiilka maxay tahay meesha la yiraahdo jooga Buuhoodle hadday siyaasadda isku raacaan waxay noqonaysaa siyaasad hadday siyaasaddu ay noqoto dadkii Soomaaliyeed oo isku wada jira hadday noqoto waa siyaasad laakiin hadday noqoto afarteenaan ilma adeera meeshaan taagan qofaan aan dani ahayn wax kala ma liqaayo qofaan dani ahayn meesha koobiya kama sameynayna aniga kaliya iskale Soomaaliya aqliga iyo maskaxda yarta Ilaahay wuxuu noo siiyay inaan wax ku kala ogaano oo wax ku kala dareeno oo inaba ha yaraateen bal wax yar xataa aan iftiinka iyo dunidu soo u shaqaynayso iyo sida adduunku yahay iyo sida maanta aan joogno 2021 baan maraynaa 1991 baan u noqonaynaa waa taagan 1991 baan taaganaynaa waa u noqonaynaa waa taagan dalkan wuxuu u baahan yahay maskax iyo aqli iyo niman adag Soomaali adag rag adag inay intuu soo baxa dalkan hogaamiyaan waxay u baahan yihiin meesha iyo burburka iyo hooga iyo baamba iyo qabyaalada nin naga saara iyo dad naga saara iyo rag naga saara iyo ummad naga saarto oo siyaasiyiin ah loo baahan yahay nin maanta qabyaalad ku meereysanayo oo sidii diyaaradda xabashida ama awrkii oo macsarada shiidaay oo maanta qabyaalada iska daba meereysanayo oo qabyaalad kaliya ay siyaasadiisii noqotay Soomaaliya uma baahna 2021 baa maraynaa adduunkan waa tagay dayaxa iyo meel ka sheeyay la degay annagu habeen iyo maalin sida macsarada iskagama daba meereysanayno reehebel iyo beel iskagama daba meereysanayno marka Soomaali siyaasadeeda aan baaday oo hoogtay waa in dib ayada dhan loo hagaajiyaa waa inay ragga Soomaaliyeed ee dawladnimada soo maray ama meel kasta joogaan ama gobol ha joogaan ama meel ha joogaan ee kursiga ku waashay waa inay ogaadaan qiimaha kursigu inuu ahayn kursiga qiimuhu inuu yahay who you are maxaad dalka u qabanaysaa maxaad u geynaysaa maxay tabadashay maxaa taariikhda ku galaysaa maxay dalka kugu xasuusan doonaan
maxay ummadaada kugu xasanay laakiin ninka hadda dhahayo ani kaligayaa muqdisho iska leh ani kaligayaa ka talinaayo haddii layga diidana afkaan dhulka u gelinayo dhahayo oo ummadii soomaaliyeed oo dhammayd oo afar nin xataa ma aha ummadii oo dhan ummadii soomaaliyeed oo dhan ay ku leeyihin war joog war alla ka baqle leeyahay oo la celin laayahay war ilaahay u noqda oo allah subxaanahu watacaala ka baqa oo madaxdeennii horooy ilaahay subxaanahu watacaala ummadda soomaaliyeed wuu idinku eeganayaa awoodda aad haysataan iyo lacagta iyo hubka wuu idinku eeganayaa maanta bil rabadaanaa lagu jiraa xataa ma usug weydeen rabadaanka markii laga baxo xataa inaad kolley ilaan qabyaalad dayn maysaane oo qabyaaladu waa siyaasadda keliya iyo cilmiga keliya oo aad taqaanaan waa siyaasadiina dhan iyo cilmigiinoo dhan waa qabyaalad wax kale ma ahan waxaad ku shaqaysataan waa qabyaalad waxa keliya ood kusoo maxay kursi kusoo korteen waa qabyaalad waxa keliya aad welina rabtaan soomaaliya inay hostage ugu jirto oo u afduubnaato waa qabyaalad soomaaliya dhallinyaradeedu waa indhahay kala furatay adduunka indhaha la arkay soomaaliya qabyaalad kuma sii jiri doonta nin kasta oo qabyaaladan iyo waxaan uu wado xoogga saarayana taariikh xun buu soomaaliya ku xusan doontaa iyo habaar iyo ilaahu inkaar kugu rid taa ha ogaado because maanta soomaali ma aha soomaalidii oo mugdiga ahayd soomaalida maanta wiilka baadiye ku nool baa ilbaxay oo og maxay tahay oo maskaxdiisii shaqaysay dhallinyaradii soomaaliyeed oo habeen imaan zam laga siin jiray oo la gubi jiray ayaa maanta ogaaday inay nimankaas waxdana u haynin beesha aad sheegayso aad leedahay kacay dadka guba dalka guba aad leedahay ayaa maanta dhiig iyo maxay tahay iyo foolxumo dambe aan diyaar u ahayn oo rabinin marka madaxda soomaaliyeed ay siyaasadii oo runta ahayd oo saxda ahayd la imaada aniga maanta toobigayga waa intaa siyaasadii saxda ahayd oo runta ahayd la imaada intaad nasataan oo bug iyo qalin qaadataan oo is organize garaysaan idinkoo nastay oo hadda 4 sano haddaad nasan lahaydeen maanta waxaana soo hor istaagi lahaa madaxyadeennii hore oo aan sharaf u hayno oo aan dhahnay shalay xilkii si fiican u wareejiyeen maantana waxay noo keenayaan inay wax ka bedeli doonaan sidii hore laakiin ilaa iyo maalintii ninkaan imaaday ilaa iyo hadda waxaad ku jirtay maxay tahay qabyaalad waa waray aad ku jirtay weli waxaad sii wadaa qabyaalad waa waray madaxweyne xasan sheekh 6 biloodaa ku darsatay madaxweyne sheekh shariif wuxuu ku darsadaa 1 year maxaa madaxda kale u diiday inay ku darsadaan time oo dalkoodii wixii ay ugu talagaleen ay u qabtaan oo ay taageerayaan wixii maadaama asagiiba aad u diideenba inuu doorashadii hirgeliyo madaxweynaha maanta jooga maxamed cabdullaahi farmaajo markaas idinka waa waxaad diiday doorashadii idinkoo doorashadii diiday iyo inuu dalka doorasho maxay ta geliyo oo meel walba ku taagnaa oo intaad idinkay nimanka gobolada isu soo aruursateen aad madaxa uga taagnaydeen haddana last minute-kii idinku doorashadii idinkaa diiday la qaban lahaa tii dadbanayd oo idinku aad ogolaadeen idinkaa diideen haddana waxay naga dhaadhicinaysaan maxay ta timekiisi waa dhammaaday madaxweyne maaha anymore adduunkana waa ogyahay inuu madaxweyne yahay everywhere in the world waa laga ogyahay inuu madaxweyne yahay he is still the president until oo doorasho ka dhacdo la doorto ilaahumay 5 sano qaadato he gonna be the president ummadda soomaaliyeedna waa garab taagan yihiin because ummadda soomaaliyeed qabyaalad baa kasoo booday oo waxaa kasoo booday quursiga walaalahooda oo waxaa kasoo booday kala fogeynta dadka soomaaliyeed oo waxaa kasoo booday maanta dhan qabyaalad leh sida diyaaradda xabashada ku meerayso adduunka markaa timaadana soomaali keliya lagu yaqaanaa wax ka badan kuu yaqaana ma jiraan marka mudana madaxweynayaal mudana ex madaxweynayaal mudana maxay tahay sharaf badnayaal madaxdeena sharafta lahayday waxaan idinku codsanaynaa ilaahay baan idinku dhaariyo waa idin baryaynaa oo garkay galbahan haysanaa oo hooyooyinkii waa sirceen oo caruurihii waa sirceen oo wadankii laftirkiisa waa lagu gaajaysan yahay oo waa lagu silcay oo ummadda soomaaliyeed dhinaca walba tacab baa ka mara iyo rafaad ilaahay ka baqa oo u gargaara oo taraagareeya siyaasad saxa inaa la imaataan waxaase siyaasad ma aha kuuley calanji banjar xataa loolama tago maxay tahay siyaasadda maanta ka socota muqdisho iyo anaa keligaybaa inta ka talinaayo keligaya inta iskale haddaan ka talin waa afkaan dhulka kuu gelinaya because shalaytaba waa anigoo ku bursada waa kaa adkaan jiray ma aha ummadda soomaaliyeed oo dhan ma aha beesha hawiye oo dhan waa 4 nin keliya 4 nin keliya ayaa saas ku dhaqmaysa 4 nin oo garow joogta iyo 4 nin oo joogta maxay tahay jubbaland iyo 4 nin oo joogta muqdisho waxa dhan oo soomaaliya waalay oo wareeriyey oo raba anagoo taagan inay masiirka ummadda soomaaliyeed salgareeyaan oo aan nabad iyo wanaag iyo sharaf iyo dowladnimo nala rabin 30 qof ma dhama 30 qof ma dhama marka 30 qof oo weliba ay ku jiraan madax sharaf lahayd oo dalka kursigiisa ku soo fadhiisatay oo maxay tahay mas'uuliyad soo qaaday ay ku jiraan waay
waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee xaqah loo wada istaago ummadda soomaaliyeed ee anigu waxaan idin leeyahay kulligiin baa dalka idinka saaran yahay mas-uul kulligeenu mas-uul idinka saaran yahay ummadda soomaaliyeed xaq iyo baadilna ilaahay baa labadaas noo kala sheegay xaqah haddaad rabto inaad awlaadaadii awlaadday dhaleen iyo tay sii dhaleen in ay hagaagaan marka ugu horreysa adigu xaqa u istaag qabiil ha fiirin beel ha fiirin because janno kuma geeninaysa beel cadaabna kuma geeninaysa xaqa haddaad u istaagto unbaad janno ku gelaysaa qabyaaladna waxay tahay 16 maxay tahay 32 sano ayaan aragnay maanta 30 sabtigu maraa cunugii ku dhashay rafaadka yaala Soomaaliya iyo xaafadaha yarka nolol kala xirxirtay qabyaalada ayaa keentay isliidida qabyaalada ayaa keentay hadday shimbir kor u kacdo oo dhacdo reer dhan baa la caynaya ummad dhan baa la baabiinaya because qabyaalad shimbirtaas dhacday qabiilkeedii la raadinaya minis qabyaalad hadday minis waxayna bartaa ka daran waxayna baday qabyaalad Soomaaliyeey dadka adduunka ugu maangaaban inaan noqonay dadka aan adduunka ugu caqliga xun inaan noqonay dad aan fakarayn habeen ah oo iska socda oo waxba ahayn inaan noqonay walaalayaalow ilaahay ha laga baqo allah loo noqdo madaxda Soomaaliyeed ilaahay ka baqa ninkaas anagu waxaan ka aragnay xaq inuu ku taagan yahay xaq darana wallahi inaan ku taageerin oo billahi oo tallahi inaan ku taageerin qabiilna inaan ku taageerin oo wallahi inaan qabiil anu ana kala jecleen ahayna qabiil Soomaali baan ahay waxaan ku taageernay xaqa ummadda adduunka dhan uga muuqday oo ah dal jecel iyo qarannimo doon ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed siyaasad la imaada qarannimo doon noqda dalkiina u gargaara ummadiina u gargaara isbedel keena la imaada idinkoo isbedelay war aniga waxaan ku tartamayaa isbedelkii madaxweynahan ku khaldanaa anu karaan keenay sida adduunyada u dhaqmayso u dhaqma laakiin sanadkan yaa kacaya habargidir yaa abgaal yaa majeertay no dad wan horaan ugu soo gubanay waxaas hore baan u soo cunay oo ugu soo dharegnay waa ognahay waxay tahay meeshayna dhigtayna waa ognahay dhibaatadii ka dhacdayna waan ognahay duufaan ummadan oo Soomaaliyeed ayaa gadoontay oo because of that gadaal noo macilinaysa mana gadoomayna because of you adaa kursi rabtid darteeda uma gadoomayna adaa wili kursi doon uma gadoomayno no way adaa wili hunguri kursi ku waashay wallahi inaan u gadoomayn ummadda Soomaaliyeedna ayna u gadoomaynin ummadda Soomaaliyeed waxay u gadoomayaan xaqay u istaagayaan waxay u gadoomayaan qarannimadoodii iyo Soomaalinimadoodii inay raadiyaan meel kastaba ha u galaan ummadda Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin oo beesha hawiye u taagan yihiin oo beesha samaroon u taagan yihiin oo beesha maxay tahay habargid u taagan tahay oo beesha baraadir u taagan tahay oo beesha kastoo Soomaaliyeed u taagan tahay inay doonaan qarannimadii marka 4 iyo 10 iyo 30 nin oo Soomaaliyeed hadaalina in la taariikh xumo iyo fool xumo ayaad ku dambayn doontaan haddaadna ummadda u naxariisan oo u gargaarin farmaajo intii alla u qoru joogaya raxmaanku intuu u ogolaado ayuu joogaya markuu ka tagana madaxweyne sharaf leh oo inta hadda aragnay aan ahayn baan ilaahay ka baryeena because illa hadda waxaan arkaynaa last 5 years iyo 4 years waxaan arkaynaa madaxweyneyaal qabyaalad ku raaxaysanaya oo anu qabiil hebel baan ahay madax qabiil ku sheeganaysa anagu ma rabnaba waxaan rabnaa madax qarannimo sheeganaysa iyo Soomaalinimo oo tunkoodu weyn yahay oo madaxoodu weyn yahay oo madaxoodu kor maxay taqanjaa jooga iimaankoodu oo dherigsan Soomaalinimo ka dherigsan nin Soomaalinimo ka dherigsan u baahannahay ma u baahanin maanta nin qabyaalad iyo dib u noqosho ummadda Soomaaliyeed gadaal ugu celinaayo marka walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ay xaqana loo wada istaago dalka loo wada difaaco xaqa horta haddaan inaga dhan aan wada hadalno oo ummadda Soomaaliyeed banaanka isu soo dhigto oo tusto inay tahay dad raadinayo qarannimo wada raadinayo Soomaalinimo raadinayo nin kasto imaanayo wuxuu ogaanayaa inaan nahay waxa aan raadinaynay waxaan maanta farmaajo ka aragnay inaan raadinayno qof kastoo Soomaaliyeed waxay ogaataa mas'uuliyad dalka ka saaran qof kastoo Soomaaliyeed oo bisha Ramadaan 10keed dambe oo lagu jiraa ilaahay gacmaha u taago ilaahay aan barina kuligeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda Soomaaliyeed inuu mideeyo ilaahay inuu xaqna tuso ilaahay inuu xalaashana tuso ilaahay inuu mataqaan cadaaladna tuso ilaahay inaan isu naxariisano inuu na tuso ilaahay inuu naga dulqaado culeyskan xun ee mugdiga ah ee fool xumada ah ee boobka ah ee dhaca ah ee maxay ta qiyaamada ah ee maxay ta qabyaalada ah ilaahay inuu naga dulqaado ilaahay aan ka barino war ilaahay wuxuu dhahay qof ilaahay uu yiri adoonkaygiyo maxay ta waligay ma ilaabin qofkii ilaahay uu dhaha adoonkaygi uu dhaha aan ilaahay wada barno aan dhahna ilaahay subxaanahu wa ta'aala dalkaan adaan noo jeeday noo badbaadi ilaahay oo madax sharaf leh oo qiimo leh oo quality leh oo Soomaalinimo ka buuxdo oo aan lacag doon ahayn ilaahay oo noo keen
ilaahay oo niman raba dadka inay badbaadiyaan oo afrikaankan gurigo afka noo soo wada kala taagay iyo carabtan afka noo soo wada kala taagay iyo shisheeyaha dheemankeena iyo dadkeenu guranaya beerarka kala baxaya ilaahay oo madax naga hanata noo keen inaan dhahno waa ilaahay oo madax naga hanata oo rafaadka naga saarta noo keen ilaahay oo dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waa ku baryaynaa in badbaadi ilaahay oo daba qaba dalkana noo ilaali inaga ilaahay barino waa walaalayaal marka bisha Ramadaanka 10ka dambe walaalayaal Soomaaliyeed intiina yartaa waxaan ka codsanayaa gudbiya intiinaas intii maxay tahay iska wareersan moogiya hadday idinkaas intiina ku jirtaa 100 kamid ah hadday gudbiso minis oo waxaan kaliya inka rabaa bisha Ramadaan 10ka ugu dambeeya inaan dalkeeni ilaahay u barino inaga dambi dhaaf marka ilaahay ka barino inaan dhahno ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo adan tala ku saaran ilaahay oo dalka noo hagaaji ilaahay madax xalaal noo keen ilaahay madax maxay tahay nasinta noo keen ilaahay madax cadaalad raadinaysa noo keen ilaahay madax ummadan daba qabata noo keen ilaahay madax dalka noo badbaadisa noo keen walaalayaal u duceeyo dalka ilaahay aamiin ilaahay dalka noo hagaaji oo ilaahay raxmaan oo ummadda Soomaaliyeed noo hagaaji oo ilaahay waa ku bariya dadka Soomaaliyeed miday oo ilaahay waa ku bariya qabyaalada naga saar oo ilaahay rabbiyo waa ku bariya mugdiga naga saar oo ilaahay rabbiyo waan ku bariyo afkaaga adoo ku xirana ku afxiranahay ilaahay waan ku barinay ee ummadan Soomaaliyeed ee jahligu raagay ee dusha ka dagay ee wadnaha ka dagay ilaahay qalbigooda kilin garay ilaahay wadnahooda kilin garay ilaahay ka bixi qabyaalada ilaahay ka bixi qabyaalada ilaahay ka bixi qabyaalad wayna dhibtay oo wayna fanto ooday oo adduunka bay nagu ceebaysay oo caruurtii bay naga laysay oo jid walbayna dhigtay ilaahay raxmaan oo qabyaalada naga saar oo ilaahay qarannimada na tus oo ilaahay cadaalada na tus oo ilaahay iimaankeena waasaca ilaahay iimaan buuxana sii because qof fiiri dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedba anigu waxaan ogaaday dalkeenu meeshu ka baabay lambar 1 inay tahay iimaanka dadkeeni hore ayagoo gaajaysan ayay waxay habi ku ahaayeen bariis cad inay karsadaan dalkooda ku faraxsanaayeen habi waxay ku ahaayeen shisheeye inay ka cishteen habi waxay ku ahaayeen geesiin inay yihiin kuwaanu habi waxay ku yihiin dalkoo dhan inay xaabsadaan oo dal kale geystaan haddana wali habi ma aha haddana wali ma dharagsana haddana wali waxba ka maqan haddana wali waxbay raadinayaan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa nimankaas Soomaaliyeed ee Soomaali wareeriyay waxa dajiya oo iimaanka ku suga ilaahu raxmaan u keen ilaahu wax qaboojiyo oo dabka ka baxay dabba ka baxay wax ku damiya ilaahu u keen ilaahu xaq tusi oo ummadnimada tusi oo Soomaalinimada tusi oo qabyaaladan bacday oo hoogtay ilaahu ka saar war adduunka Amerikadan aan had joogo Mareykanka had joogo qabyaalada maxay tahay century-yaashii ugu horeysay ayay qabyaalada arkeen isla markii waa ka boodeen waxay dhaheen wax oo adduunka ummad isu keeni kara ma aha qabyaalada walaalka inaad guursan walaasha inaad maxay tahay guursan inaad qaraabada xiriirisid dhow bas le waay wax kale ma jiro wax la isku yahay malaha Mareykanku hooyada iyo aabaha iyo dumaashiga iyo seediga bas ay u yaqaanaan close family taaseed ayay awoowe aabi hooyo maxay tahay father in law taaseed waaba intaaba macnaheeda ma taqaanaan because mugdiga aan ku jirnay ka baqeen inay galaan macnaha waxa waaye dadkan Soomaaliyeed oo mugdiga ku jiro oo mugdiga ka baxeenin ee waxay dam arkeen sida anaga nahay in ay galaan may rabin waxay ka fikireen 400 sano ka hor marka way iska tuureen waxay dhaheen qabiilba ma rabno ilaahu muninku 20 qof dhalo shaqadooda ma aha brother in law sister in law maxay tahay mother in law sister iyo brother daaseed waa ka tageen marka inaga dad islaam baynu nahay ilaahay baa ina yiri maxay tahay isku kala garta qabiilka ilaahayna wuxuu na faray mataqaanaa ehelada qaraabada xiriiri ilaahay baa ina faray laakiin dalkaaga ku dumi dadkaaga doox walaalaha madaxa ka go walaalka nabcow walaalka mataqaanaa biyo ma cabi kartid because ana dhukaan halka taagantahay ana iskale walaalka dhac walaalka dil ilaahayna ma dhihinin ilaahay ma dhihinin marka walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ay ilaahay ha loo bariyo dalkeena bisha Ramadaan ilaahay ha la bariyo ilaahay inuu noo soo hadeeyo madaxdeennana ilaahay inuu noo soo hadeeyo oo xaq tuso oo ummadda Soomaaliyeed ee rafaadsan ilaahay inuu tuso oo ay isbarbar dhigaan nolosha ilmahooda haystaan iyo nolosha wiilka yarka oo ku nool Muqdisho u haysto inay ka fikiraan oo isbarbar dhigaan oo ilaahay xaq taas tuso cadaalada tuso aan ilaahay u soo barino dalka ilaahay inuu noo hagaajiyo aan ilaahay u soo barino in ilaahay sida aan ku jirnay oo aan soo marnay oo rafaadka dib noogu celinna ilaahay aan ka barino ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka barino ummadda Soomaaliyeed dalkan waa inoo wada baahan yahay wuxuu u baahan yahay energy-gaaga si kasta aad wax ugu qaban kartid
si kasta aad wax ugu qaban kartay ayuu noo baahan yahay walaalayaalow dagaal maanta ah iyo 1991 loo noqonaa iyo dadkan guba iyo dadkan dila iyo waxbaan liqaa iyo waxbaan tufaa maanta meeraa u noqon karna ma aha maanta meel Soomaali u baahan tahay ma aha dawladnimada iyo dhaqdhaqaaqa iyo wanaaga iyo matqana hanaanka dawladnimo inoo muuqata aan ku mintidno aan garab taagnaano tan dambo ay maanta aan garab taagnaano madax dhisan madaxda Soomaaliyeed oo soo socoto ilaahay ha ka dhigo madax dhisan oo isu soo diyaarisay oo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sansaanka dawladnimo aan aragnay meel ka sii shishaysa inoo qaadi kara ilaahay ha ka dhigo raxmaanku ilaahay ha ka dhigo kuwa aan gadaal fiirinayn iyo mugdi iyo jahli iyo qabyaalad aan fiirinaynin laakiin fiirinaya qarannimo iyo sidee baan dadkayga isugu soo aruuriyaa sidee baan isugu soo dumaa bal waxaa la arki jira Soomaaliyeed oo aan kaga tagay aan kugu soo gabagabaynaya waxaa la arki jiray qof oo ilaahu mugaal ahaado qof masuul ah oo madax ah oo mideeya dadka state-ka uu madaxweynaha u yahay iyo maxay tahay state-ka uu madaxweynaha dalka uu yahay laakiin state Minnesota oo kale ninka jooga markuu hadlaayo Republicanna lama hadlo Democratina lama hadlo wuxuu ka hadlaa governorka oo state-ka wuxuu ka hadlaa dadka Minnesotianka ah wuxuu ka hadlaa maxay tahay dhaqaalaha Minnesota wuxuu ka hadlaa isbedelka Minnesota wuxuu ka hadlaa waxa soo galay iyo waxa soo baxayo wuxuu ka hadlaa wixii horumarin ah wuxuu ka hadlaa dadka inay midaysan yihiin madaxweynaha oo dalka dhan haysta oo hadda Biden oo kale markuu hadlaayo wuxuu la hadlayaa America Mareykan oo dhan uu la hadlayaa lama hadlaayo maxay tahay state-ka asaw ka imaaday state-ku ka imaaday oo halka u dhawaa lama hadlaayo meesha uu ka shaqaynayo wuxuu la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ummadda adduunka oo dhan ummadda waddanka oo dhan laakiin annaga waxaan aragnay madaxweynayaal intay meel soo istaagaan ama masuuliyiin intay meel soo istaagaan dhahaaya beesheedii may maqlayaan wariyaa ciidanka adna ka soo bax hebelo may maqlay ka soo bax adna ka soo bax adduunka xaquu maraya adduunku wuxuu marayaa meesha aad adigu maanta ka hadlayso meel 100 sano ku dhaaftay adduunkiina wuxuu ka hadlayaa ummadaydu waa inay midaysan tahay ama gaal ha ahaado ama buuri ha ahaado ama muslim ha ahaado ama wuxuu raba ha ahaado ama diin la'aanba ha ahaado laakiin waa inay hal yihiin markuu hadlayo wuxuu u hadlayaa si anigoo gurigayga ka daawanaya asagoo Washington ka hadlaya ayaan gurigayga ka daawanaya markaasaan u riyaaqaya markaasaan u duceynaya leeyahay wallahi ninkaas ilaahu soo haday hadalkiisa waa itaabtay waxaan dareemayaa inuu wuxuu dareensiinayaa anoo Afrika ka imaad oo Soomaaliya isqalqalatay ka imaad oo qabyaaladiisyaal ka imaaday oo wali maanta 2021 reer hebel oo ka cad isku haysta ka imaaday haddana Biden markuu hadlaayo wuxuu tusaa inaan ahay Mareykan inaan ahay maxay tahay shaqaalaha waddanka inaan ahay dadka xaqa waddanka u leh inaan ahay dadka maxay tahay oo dalka u dhashay sidaas camal uu ila hadlaa dareenkaas uu geliyaa Kristan lama ihi madow cadaan lama ihi maxay tahay dalka asaga madaxweyne u Afrikaan xun oo Soomaaliya oo waliba ugu libata Afrika ka imaatay aan ahay hadda Afrika anaga ugu liidano Afrika ugu liidata ka ma fahanteen laakiin haddana he show me inuu maxay tahay wuxuu itusaa inuu ila hadlaayo markaan daawado wuxuu itusaa inaan ka mid ahay dadku la hadlaayo annagana madaxdeeni oo 2021 waxay maraysaa reer hebelo wariyaa waa ku jeeda ad waa ku jeeda gorgora ku jirta ka soo bax wariyaa adiga waa ku jeeda hooy wariyaa hooy ka soo bax halkaasaan marayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ina badbaadiyo oo ilaahay xaqa hana tuso oo ilaahay dalkeena iyo dadkeena hanoo hagaajiyo oo ilaahay madaxdeena hanoo hagaajiyo muqdisho qabuuro hore u noqotay qabuuro kale uma baahna ma u baahna muqdisho in moor qabri kale laga sii qodo oo ayadoo weliba dadkii maatada ahaa coronavirus iyo gaajo iyo xanuun iyo dhibaato iyo dayac iyo tabaryari kala haysato in loogu daro qaxootinimo ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa war ya allah ya rabbi war ilaahay ka baqa war horta islaam manihin miya war ma shahaadana miya war raxmadii iyo maxay tahay naxariistii xagee naga aaday walaalayaal naxariistii xagee naga aaday naxariistii ilaahay baa ina faray ina isu naxariisane naxariistii xagee bay naga aaday allah laga baqo walaalayaal waxaan idinkaga tagayaa dhamaantiin ummadaan jeclaayay Soomaaliyeed dadkaygiyo bahdi la iga beeriyo bulshadaan jeclaayay Soomaaliyeed hal loo istaaga dalkeena hal loo istaaga qarannimada hal loo istaaga waxaan loo dhididin oo dhididku saas loogu daadinin adduunka dheefteeda lama helo qarannimada waa inaan u dhididnaa waa inaan jahliga dalkeena ka saarnaa waa inaan jahliga madaxdeena ka saarnaa madaxdeena waa inaan jahliga madaxdii annagana hogaamin lahayd waa inaan jahliga ka saarnaa waa inaan u caqli celinaa waa inaan xaqa tusnaa waa inaan kula aadinaa
waa inaan soomaalinimadeenna wada raadinaa waa inaan gobonnimadeenna wada raadinaa waa inaan ummadeenni midaysan wada raadinaa ilaahay baa risqa ku siiya waryaa waxaad weynaysa male dalka soomaaliya marka anu ku koray oo ku dhashay habartay aniga ay dhashay single mother bay ahayd shilin ma haysanin haddana wayna soo korisay iskuullaha walaalahay jaamacado waa soo noolaana minis dawlana ma caawinaynin dalkaaga haddaad haysato qalbiga ayaad rich ka tahay you are rich you inside rich haddaad haysato dalkaagii wax kaa maqan ma jiraan muufadaadaa garaacane tanaarkaagaa ku dhegsane bariiskaaga cadsane caanahaaga ku cune geetalaalkaaga iska hor fadhiisane kursigaaga dhigane nimcadu waxay tahay waa nabadda waxa dhan oo lagu sheegayo maandhood waxaa la iiga sheekaynaya gabar baa iiga sheekaysa turkiga aan iskala hadalnay waxay igu tiri laba wiil oo yaryar oo soomaaliya oo isla socda bay tiri waa qisada iga yaabsatay laakiin I hope labadaa wiil oo yararkaa soomaaliyeed inay noqdaan labada wiil oo soomaaliya badbaadin doona madaxdan u noqon doona because waxbaa laga bartaa wuxuu kugu dhaco gabadha waxay igu tiri laba wiil oo yaryar oo soomaaliyeed baa meel waxay maraayeen oo mudaharaad yar oo ay turkiga leeyihiin ka socdo marka calamadoodii bay ayaguna qaateen calamadii turkiga wiilal yaryar waaye calamadii meeshay iska istaageen waa laalaadiyeen waa iska socdeen de wiilal Soomaali waa iska laalaadiyeen calamadii calankii hoos u dhigeen sida calankaan oo kale bay saa isaga laafiyoodeen askar afar nin oo askar ah intay dhinacyada ka soo istaagtay waxay ku dhaheen waa idin jeernaa inaad tihiin Soomaali youthki inaad tihiin dhalinyaradii oo yararka ahayd oo Soomaaliyeed inaad tihiin waa ognahay luuqadayda inaad aqoonin waa ognahay sharcigayga inaad aqoonin laakiin haddaad aqoon lahaydeen maanta midkiinaba afar xabadood baan ku dhufan lahayn waayo calankayagii baad hoos u dhigteen bay dhaheen ma u jeedeen markaa socoteen calankeena sa calankayaga inaad saa u haysaan ma ogi saa ma dhihi kartaa waa inaad saa u haysiin haddaad saas dhahdaan next timeka ogaada jeel baa gelaysaan hadda ninkii booliska askariga ahaa wuxuu ku yidhi haddaadan wiilashaydoo kale la ekaan lahayn oo aan ogahay inaad brother Soomaaliya wiilasha yaroo Soomaaliya ka yimid aad ahayn oo youthki Soomaaliya oo aadna sharcigayga aan ogahay inaad aqoonin maanta xabadaan kugu dhufan lahaa laakiin sharcigaygii baad aqoonin luuqadaydina ma taqaanid wiil yaroo waxaa tahay brother Soomaali uu dhalay oo ka imaaday markaan this time laakiin ayagii baa la tuso la baray sharcigooda siduu yahay waxaa lagu baray calankooda in saas loo haayo ma ogiye inaan saas la dhigi karin wiilkaas yarkaa oo Soomaaliga ah qabyaalad haddii la soo baray muxuu ku fakarayaa markuu hadda intaas lagu dhahay muxuu ku fakarayaa aniga markii la iiga sheekeynay waa iska ilmey muxuu ku fakarayaa tolo adduunka halkaasuu marayaa turkigaad aragteen dadkooda gaajay ku wada nool yihiin minis ma aha dad wada riij ma aha laakiin qalbigay riij ka yihiin dalkooday jecel yihiin waxay ku dhintaan wadankooda waxay ku dhintaan wadanimadooda waxay ku dhintaan calankooda waxay ku dhintaan ayaga waxay rabaan shaahooda le inay karsadaan geed hoos iska fariistaan afar kursi birkun dhulka dhigtaan raaxay ku jiraan janno ka maqan ma jirto ilaahay tii kale hadduu ugu daro laakiin annaga waxaa naga dheragsan adduunka dhan aan dhacayna dalkeenni baan dhacayna dal kale aan geynayna carruurtaan kala badinayna dadka o dhan baan kala waxayna welina habi ma noqonayno ilaahay ana soo nabad qabta marka walaalayaal dhammaantiina aad baan idin jeclahay aad baan ummadda Soomaaliyeed u jeclahay jacayl aan idin qaba ayaan u hadlaa wax aan rabay ma aha inaan sameeyo inaan hadlo ma jecli inaan minis waarid baa dhalay walaala ila dhashay ehelaan leeyahay minis wax oo qofna ilay rabay ma aha laakiin I do that so I can at least waxun inaan dalkayga u celiyo inaan dadkayga wacyi geliyo inaan maxay tahay at least xataa hal qof iyo laba qof aan jahliga ka saaro oo maskaxdooda wax yar iska bedesho waxa aan sameeyay waxa uu sameeyay ummadda Soomaaliyeed inay badbaado waxa aan shakhsiyan iyo naftayda iyo gooni aan u sameeyay ma aha waxaan u sameeyay oo kali ah oo wallahi ah in ilaahay ummadda Soomaaliyeed hagaajiyo dalkoodana badbaado dalkii noo badbaado inta kaliya aan u sameeynaya marka insha Allah walaaliyaal dhamaantiina waxaan idin leeyahay dalkeena u wada istaago ku seexda ku soo toosta waxaan idin ka codsanayaa bisha Ramadaan ha ilaabina inaad dalka u duceysaan tobankii dambe oo khayrka galeena laytu qadarka ha loo soo jeedo salaatul leyl ha la tukado ilaahay qof walba oo Soomaaliyo masuul iska saar dalkaaga inaad u duceyso tobanka leylka inaad dalkaaga iyo madaxdaadaba u duceyso madaxdeena xataa waxa wareersan camal noqday ducey naga rabaan waa in loo duceeyo ilaahay inuu noo xasiliyo ilaahay inuu noo dejiyo ilaahay inuu xaqa tuso ilaahu noo soo aruri ilaahu xaqa tusi ilaahu iimaanka ku sug in loo duceeyo waay ayaga xataa duco treatment ah waa inaan siino ha loo duceeyo madaxda ha loo duceeyo dalka ha loo duceeyo ummadda Soomaaliyeed dhibaataysan ee harsan weyday ee gaajada ah ee maxay tahay intaas oo san rifaadka ku soo jirtay ha loo duceeyo xamar inuu in la hadal dhahay aan intaana ka bixin mar kale hadal wax kale aan xasuustay waaga xamar tagay hotelkan deganaa meel yar oo ku dhagan baa la qarxiyay marka hotelkii oo dhan muraayadiisi aan ugu soo daatay walaalayaal arrinta yarta waxaan ku sheegayaa
macnaha ku jiraan rabaa dadka Soomaaliyeed say u daaleen oo dhalinyarada Soomaaliyeed niyad jab u noqdeen baa idin sheegaya marka hotelkii muraayadii oo dhan baa nagu soo duntay ilaa meesha hoosteedii baa la qarxiyay ilaahay waa naga badbaadiyay oo hotelkeennii buu u socday laakiin ilaahay hotelkii ma keenin waa markaan hadda xamar tagay hotelkii markaan ka soo degay meesha qolalkii dhan markaan soo dumeen daaqadihii muraayadii soo dhaceen hoosaan u soo degay wiil aan ku qiyaasay markaas inuu jiro 17 sano hadduu ugu bato waa 17 sano baa saas ii fiirshay wixii arkay anoo labada indhood banaanka imaatay argagaxsan naxsan yaaban si noqday sibaa noqday because hub dhacaayo goorma igu dambeysay wax dhacaayo waa hore igu dambeysay dhamaantii waan salaamaya baa aada idin salaamaya dhamaantiin walaalaha salaamaya markaas wuxuu dhahay intuu saas ii fiirshay ana dhalinyarada dhanna waan la sheekaysan jiro galabkii markaan aan meesha soo fadhiistaan kulli wada wici jiro waan wareysan jiro wuxuu igu dhahay habar yar maxay indhaha kuu soo babxeen maxaad la murugaysantaa saa ira habar yaro wixii dhacay meeqa qofaa dhimatay 9 baa dhimatay ma 9 dhimatay alla hooyo ooyina iskala fadhiistay cunuga wuxuu igu dhahay mataqaana habar yar saaca hadda waxaan maraynaa 45 minute baan maraynaa arrintan markay dhacday 45 minute ka hor ay ahayd uu dhahay markay dhacday oo reedi meeshii aan tagnay meydkii aan qaadnay waa soo xaaqnay shaha bakarin oo ku soo cabnuu dhahay adi marka wili maxaa la shoogsantaa 45 minute aaba ka soo wareegay meeshaan wuxuu dhahay habar 15 daqiiqo ka dambe waa inay naxantu kula dhaafin waa inay hore u socotid uu dhahay waa 17 jir waay 17 jir noloshiisa qaxaas ku soo jiray oo madfaca ku soo jiray oo qarxa ku soo jiray naxariistii oo dhan qalbigii oo dhan baa jabay waxa kaliya oo uu garanayo waxa waaye waa dhinteen wixii dhintay hore u soco laakiin hinaaw inay haddana isla mar biri dhacayso aniga marka intuu ila yaabo wuxuu dhahay 15 daqiiqo kula dhaafin maantana rag baa waxay ugu dhaaranayaan muqdisho aan gubeyna wiilkaas yarka ah oo makhaayada ka shaqaynayay oo maskiinka ah oo noloshiisii raadinayo oo aniga ila intaan shoogayo barbaray aniga dhan gaduutay habaryaro aan dhahayo oo asagiiba inaan ku carro habaryaro ilaali camal dhaha aan ka baqaayo uuba wuxuu leeyahay asagii habaryar 45 minute ka hor ahayd ma waalanta 45 minute wuxuu iga dhigay inay ahayd 40 saacadood ka hor 45 minute ka hor leeba ahayd habaryar maxaa ku helay bismillaahi habaryar wuxuu dhahay indhaha ku soo baxeen isdaji calm down habaryar bismillah wuxuu dhahay 15 daqiiqo habaryar naxantii kula dhaafin horaa loo socdo meeshii habar shaah baan karanay ku shaah baan karanay makhaayadii waan furnay makhaayada ee meesha moogta makhaayada habar shaah baan ku cabnay waaba karanay ku shaah ku cabnay already makhaayada waa furanta hadda waa la fadhiyaa ku dadkii shaah ku cabaayeen 9 qof oo meeyda oo madaxyadoodii iyo lugahoodii la waayeen waa laga qaaday ka sheekay marka midka maanta wali ugu hanjabaayo waa in dilayaa waa in baabi'inayaa waa in dhamaynayaa ilaahay xaqa tus madaxdeena walaalayaal dhamaantiina ummadda Soomaaliyeed bahdi la iga beeray kulliin waxaan leeyahay Ramadaan kariim Ramadaan mubaarak ilaahay Ramadaankiisa waxaan ka rajaynaynaa ilaahay ka baryeena isbedel khayr qaba oo qiimo badan ilaahay intii dhimataa u naxariisto ilaahay inta xanuunsan oo maanta corona virus ummadii dhan corona virus baabi'iyay oo Soomaaliya gobol iyo tuulo ilaa iyo maxay caasimada saasay dadkeen u daasan yihiin ilaahay raxmaanka caafiyo ayaga dhamaantood ilaahay waxaan ka baryeena inta xanuunsan inuu u boogadhayo inuu caafiyo intii dhimatayna rabbi inuu u naxariisto innagana ilaahay ha nooga daba naxariisto ilaahayna sanadkiisa khayr iyo barwaaqo iyo Ramadaankan barakaysankiisa khayr iyo barwaaqo haynugu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ay Ramadaankan hadaad joogtid ilaahay baa og inaad kan kala gaari doontid dad badan baa Ramadaankii hore nala joogay maantana dad badan ayaa nala joogin boqolaal ayaa nala jooginin marka waxa ku xisaabtantaan Ramadaankaas iyo Ramadaanka kale inta u dhaxaysa inaad khayrka ka shaqeyso inaad ilaahay barido inaad ummadaada u maciinto inaad wanaaga ku dadaasho wanaaga la inaad ku dadaashid wanaaga la inaad xoog saartid inaad xumaha iska dhowrto oo waliba xumaa dadkaaga dhan ugu soo jiidayso dhibaato oo criminal ah inaad iska dhowrto because haddaan aniga maanta reebel oo ka cadhaho waxaan dilayaa oo masuul ka ah inta qof oo ku dhimatay dagaalkaas inta qof oo ku dhaawactay dagaalkaas inta qof oo ku hanti beeshay dagaalkaas inta qof oo ku dhibaatootay inta qof oo ku haraaday inta qof oo ku qaxday intaas baa ana masuul ka ah ina saa u ogaatid waay marka aad baan idin salaamiyaa dhamaantiina ilaahayna waxaan ka baryayaa kulligeen khaatimada khayr inuu noogu khatimo ilaahay inuu noo dambi dhaafo ilaahay raxmaan waa noo jeeda ani kulli ilaahay waa ii jeeda qalbigeena ilaahay baa daalacanayo raxmaanka ayaa daaracanayo kulli ummadda Soomaaliyeed oo aan halka maqnayn hal inuu iga maqnaado xataa ma rabi aan jecelahay ilaahay waxaan ka baryayaa sidaan u jecelahay Soomaali in ilaahay isu jeclaysiiyo ayaga ilaahay taasaan ka baryayaa Soomaali sidaan u jecelahay ilaahay inuu isu jeclaysiiyo baan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryayaa bisha Ramadaan ilaahay waxaan ka baryayaa sida aan Soomaali u jecelahay oo aan u jecelahay wanaagooda oo sharaftooda u jecelahay oo midnimadooda u jecelahay in ummadda Soomaaliyeed isu jeclaysiiyo walaal dhamaantiin waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum
ورحمة الله وبركاته أن سسود دعينو دلكينا أن دعينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته